qolay midabkiisa bedeli karin ayaa si kama ah ugu talaabsaday dhoobo. Wuxuu isku dayay inuu iska ruxo balse dhoobadu si adag ayay ugu dhigtay. Markaas ayuu go'aansaday inuu dib u gurto laakiin laan geed ah ayaa jabtay. Wuxuu bilaabay inuu si tartiib ah ugu quuso ceegaag dhoobo ah isagoo sii galaya qoto dheer marba marka ka dambaysa. Markaas ayuu meel fog ku arkay laan dheer. Isagoo ka faa'iidaysanaya carabkiisa dheer ayuu laanta qabsaday. Wuxuu ku dul socday sidii qof ku socda lugo dhaadheer ulal wuuna ka baxsaday ceegaaga isla markii uu gaaray dhul adag dhagax weyn ayaa si xawli ah ugu soo duulay. Wuxuu isku qariyay cawska balse haddana dhoobo ayaa ku sayday. Isaga oo aan wax badan socon dheecaanka geedka xabagta geedka ayaa agtiisa ku dhejisay. Wuu jiiday oo jiiday balse ma uusan iska bixin karin sidaas darteed wuxuu isticmaalay awoodda nuugista ee carabkiisa si uu laan u qabsado wuxuuna ku jiiday xooggiisa oo dhan. Si kastaba ha ahaatee weli wuu iska bixin waayey. Halkii miro geedka ka soo dhacay ayaa ku daayay. Wuxuu si quus ah ula halgamay dabadeedna wuxuu si toos ah ugu dhacay sariir ubaxa. Markii uu ka soo baxay jirkiisa waxaa daboolay manjaale dahab ah. Wuxuu dareemay inuu gebi ahaanba caawin leeyahay. Nasiib wanaag roob ayaa cirka ka bilaabmay. Ugu dambayn wuu iska dhaqi kariyey markii roobku istaagay oo qoraxdu soo baxday qaansar roobaad ayaa muuqday. Milicsiga qaansar roobaadku wuxuu ka dhalaalay dusha biyaha iftiinkiisana ku daadiyey. Waxay ahayd mid aad u qurux badan markas mar kale isagoo adeegsanaya carabkiisa firfircoon ayuu isku tuuray dhanka qaansar roobaadka. Markii uu gudaha u galay midabkiisii asalka ahaa ee cadaanka ahaa wuxuu qaatay dhammaan midabada kale. Intaa kadib wuxuu ku ciyaaray qaansar roobaadka si uu qalbigiisu doono. Markasta oo uu guuro xadhig midab kale ah isla markiiba ayuu noqday midabka saxda ah. Ugu dambayn wuxuu gaaray korka qaansar roobaadka halkaas oo uu isu bedelay casaan dhalaalaya. Laakiin markii qoraxdu sii iftiintay qaansar roobaadkii si tartiib ah ayuu u libdhi jiray. Isna wuu soo dhacay. Intii uu dhacayay midabadiisu way isbedelayeen oo kala guurayeen. Isagoo yaaban ayuu eegay midabada quruxda badan ee ku wareegayay jirkiisa. Wuxuu ogaaday inuu hadda awood u leeyahay inuu midabka maqaarkiisa bedelo markuu doono. Ugu dambayn wuxuu doortay qaab midab ah oo la mid ah qaansar roobaadka laftiisa. Sidaas ayaanu qolaygu u bartay una maamulay farshaxanka bedelidda midabada.